sheeko xariirtii saddexdii orgi ee ilmo garaf eevantiire omdiitere bukana biruse beri waxaa jiri jiray saddex orgi oo doonayay inay tagaan dhuldaaqsimeedka si ay isu soo naaxiyaan. waxaa loogu yeedhi jiray saddexdii orgi ee ilmo garaf. jidka hortiisa waxa ku taalay buundo uu hoos maro biyo dhaceen shalow ah. waxay ahayd in buundada laga tallaabo. buundada hoosteedana waxa deganaa cirfiid aad u weyn oo khatar ah oo leh indho waaweyn oo dibadda uga soo baxsan, sankuna la eg yahay daabkudimeed. markii ugu horreysay waxa damcay inuu buundadii ka tallaabo orgigii ugu yaraa ee ina garaf. qurdhuf qadhaf qurdhuf qadhaf ayuu kaga siiyey buundadii. waa kuma kan ku dul tumanaya buundadayda, ayuu ku qayliyey cirfiidkii. alla waa aniga, orgigii ugu yaraa orgida ilmo garaf. waxa aan ku socdaa dhuldaaqsimeedka si aan isu soo naaxiyo, ayuu yidhi isaga oo si latifan u hadlaya. hadda ayaan kuu soo korayaa oo ku qaadanayaa, ayuu ku tiraabay cirfiidkii. alla maya, aniga hay qaadanin, anigu waan yarahay ee iska kay dhaaf. in yar uun sii joog, waxa soo socda orgigii dhexe ee ina garaf, isaga ayaa aad iiga shilisa. hawraarsan ee iska soco, ayuu ku tiraabay cirfiidkii. in yar kadib ayaa waxa soo maray orgigii dhexe ee ina garaf oo doonaya inuu isaguna buundada ka tallaabo. qurdhuf qadhaf qurdhuf qadhaf ayuu kaga siiyey buundadii. waa kuma kan ku dul tumanaya buundadayda, ayuu ku qayliyey cirfiidkii. alla waa orgigii dhexe ee ina garaf. waxa aan ku socdaa dhuldaaqsimeedka si aan isu soo naaxiyo, ayuu yidhi orgigii isaga oo ku tiraabaya dhawaaq aan latifnayn. hadda ayaan kuu soo korayaa oo ku qaadanayaa, ayuu ku tiraabay cirfiidkii. alla maya, aniga hay qaadan, laakiin iska yar sug, waxa dhowaan soo maraya orgigii ugu weynaa orgida ilmo garaf, isaga ayaa aad iyo aad iiga weynay. hawraarsan ee iska soco, ayuu ku tiraabay cirfiidkii. isla in yar kadib ayaa waxa soo maray orgigii weynaa ee ina garaf. qurdhuf qadhaf qurdhuf qadhaf ayuu kaga siiyey buundadii. orgigu aad ayuu u cuslaa ilaa ay buundadii gariirtay oo ay kala jebi gaadhay. waa kuma kan cagaha la dhacaya buundadayda, ayuu ku qayliyey cirfiidkii. waa orgigii weynaa ee ina garaf, ayuu yidhi orgigii isaga oo ku tiraabaya cod qallafsan. hadda ayaan kuu soo korayaa oo ku qaadanayaa, ayuu ku qayliyey cirfiidkii. haa, soo kor, waxa aan leeyahay 2 gees, iyaga ayaan indhaha kaagala soo baxaya. waxa kale oo aan leeyahay 2 dhagax oo waaweyn, iyaga ayaan ku jebinayaa dhuuxa iyo laftaadaba, ayuu ku tiraabay orgigii. markaas ayuu ku booday cirfiidkii oo uu indhihii ka soo tuuray oo uu ku kala siibay dhuuxa iyo laftaba. halkaas ayuu ku tuuray biyo dhaceenka dabadiisii. markaa kadibna waxa uu isaga sii socday dhuldaaqsimeedkii uu ku socday awalba. orgigii nabadqab ayay ku naaxeen, xoog iyo xoog ayay u naaxeen ilaa ay tahli waayeen inay gurigoodii yimaadaan. baruurtiina kamay dhicin ilaa hadda oo halkoodii ayay ku barwaaqaysan yihiin. sheeko xariira, sheeko dhammaatay carruuray shibdheh.